بسم الله والده لبا meelood oo runtii quraanka markaan eego ilma ay ugu soo istaagto qof walba waalidana aan jeclahay inuu dul istaago waa nabi yacquub iyo nabi yuusuf laba arin oo ku saabsan waayo awlaada mar walba waxa kaaga iman kara waalidow waxyaabo runtii qalbigaaga gubi kara waana marka la rabo inaynu ilaahay u cararno fafirru ila allah mar walba u ducay bal aabe waxaad suuraysataa waa nabi yacquub calayhi salaam teenagerskiisu ay shirayaan si wiilkiisan yar ee uu khatarta uga baqayo ee uu dhabta ku haysto ay uga kaxaystaan una dilaan ka fikir bal wiilashii teenagerska ah oo walaalkooda fikiray markay la tagaan iyagoo le aabe parkingan geenin oo nala soo ciyaaraya sida hadday u dhahaan just go to the basketball meeshaa markay tagaan ilmaha yar hortiisa isku haysta sideen u dilaa bal kelmadaa fiir roomaha ay ilmaha yar ku keeni karto waa nebi markay qaadaan ay rabaan inay ku ridaan fi ghayaabati aljub quraanka siduu la sheegay ceel gunti bal ka fikir ilma yar oo walaaladii teenagersku ay xambaareen oo og inay dilayaan roomaha iyo qaracanka iyo argagaxa ilmaha waa nabi yuusuf la soo gudboonaada ma dareemi taas runtii ilma iga ka dhinaca kale quraanku wuxuu noo sheegay habeenkii cishaa'an yabkuun markay guriga yimaadaan habeennimadkii iyagoo ooyaya oo yidhaahdaan aabe yuusuf annagoo tartamayna oo ciyaarayna ayaa waxaa cuntay bahasha yeyda la odhan jiray habeenkaas quraanku wuxuu yidhi habeennimadkii bay soo noqdeen iyagoo ooyaya soo maa aabbaha habeenkii toloo ma seexday waxaa ii sawiran aabe nabi yacquub calayhi salaam waa aabe ilmihiisa jecel ilaalinaya habeenkaas habeenka u ahaa ayaan isweydiiya waxaa la mida marka hooyo soomaaliyeed oo kala soo qaxday ilmahan wadamo dagaalka daba taagan la yidhi xabad baa inankaaga dishay ka fikir marka hooyo soomaali oo la soo qaxday wax baraysay subax walba baska u taagnay qabowga hooya kabaha xidho hooya koorka xidho firiijka waxan kala bax biisa noo soo gad saa u daba taagnay baa la yidhi xabad baa dishay meydkiisuna firiijku ku jira wallaahi ilaaha iga hadlinaya magaciisan ku dhaartay waalidow shaqooyinka aan qabko waa igu adag waxaa ka mid ah marka qolka meydka intaan dhallinyarada maydhno xabaddu ay dishay ay waalidkood soo galayaan ma aqaano qaab loolaha imtixaan ka adag uu waalidku mari karo ilmihiisa inuu xabaalo ma jirto sidaa darteed waxaan rabaa hooyo walba oo inankeedu xabad dishay ama laga yaabo si kale in loo dilay habeenkaa waan ogahay inaanay seexan waayo inankay soo korsay guriga la joogay firiijku ku jira iyaduna wegda nebi yacquub midaasaan ka baranayna allaha awlaadeena xifdiyo innagana allaha ina xifdiyo mar walbana waalid awlaadda u duceeya ha u ducaynina keliya musiiba markay ku dhacda mar walba shanta salaad isbar inaad u ducaysa ilmaha insha allah ilaahay waa badbaadin fadlan kelmadan walaalaha muslimiinta la sheer gareeya laakiin faloo dhaha wassalaamu calaykum waraxmatullahi